محيتها غاب كان أدوهد ليسي قبرات نوكنتي وحادنا دهدي قبرنا وإنا نقول سدا هاي حق مولين ميا إنا وحكاوي دين السبب إسديجي مركوري أنا قول لك أنا هذا دي ما له ذي ليه ألينا وانجع هذا وأنا أقبل لها أو ما حد عليها ولا ما حد عليها إيش يقبل ورهدات بحضو أديك ما دقائق له ضحك سمع عليه سوبرمان ياتكم على سينا مرة بقينا نهضلانية تسمعنا ذو حتى إنا نربين بقى وكذي يا أخي هذو ترمنا يقول لك ما يسوى محي هذا المال يعني تكجاه اللي يسوى ولا ما لا يعني مين كه الله يا ها أديك النفط هذا موي وحكلت كيف فكرة صحابي راتي ما جرتو halkan waad ka tagtay adigoon gadaal soo fiirin waalida iyo xanaaqo idil aniga ayaa diga tagtay awogay xanaaqiisa haddana saasay taw iska baashaalaysa aniga waxaan ku qasbanaa hooyo inaan koolkooliyo waxaan ku qasbanaa wax kasta inaan aqbalo si aysan dhibaato u dhicin oo kaliya taas ayaan ku qasbanaa ma fahamtayna haddana waxaad isku daysaa walaal inaad ii jisho di koolkoolis ha samayn hadaba walaalaha ii noqon adiga kaliya waxaad samayn jirto uun samee igu filan inaad faraa la soo gelin arrimahan adiga aliina gulso ayaa tahay yamaal gulso xaaskiisa weliba quruxda badneed oo dhalinyaradana ahayd ugu dambeynta aniga waan faraxsanahay gacliyey hadduu imaado laabta ayaan gelinayaa yamaan dumaashi nasliin ma ku dhibin soo ma ahanne ma ku dhibin soo ma ahan hoo alaabtan hooyo ayuu kaa soo dhiibtay waad mahadsan tahay dumaashi nasliina waad bixi kartaa waayahay habeen lamida bye bye aad ayay u qurux badan yihiin saakadan aad ay u qurux badan tahay aad suuliyaha galaya kadibna horaa iska soo diyaarinaya meeday jamiila gudaha ayay ku jirtaa marow gulfaa allah dhibaato weyna meeshaan ka soo socotay yaa sugbal wiilii dhaqsac shirkaaga baro na soo dhawaaba marwa gulfaam oo annaga miyaad nagu kaftamaysaane mudana muxsin wiilkayga ahoo telefoonka qaada geem ku soo ciyaar orod qolkaaga gal soco haye marwa gulfaan maxaad u taagan tahayne soo fadhiisa qaxwo ayaan wada cabaynaa nasriin qaxwo noo keenani marwada haalim waxaad isku malaynaysaa inaad tahayne yaase tahay markaan aniga in soo fadhiista qaxwo adiga kula cabaayo wiilkaaga sodohdiisa ayaan ahay adigana gabadheeda sodohdeed ayaa tahay waa inaad ixtiraam u muujisaa weliba si wanaagsan aad ula dhaqantaa gabadheeda war annaga waxaan iskuna haba yaraateen ma laha wiilkaygana waan hubaa in aad khiyaanteen idinka laakiin guurkaani ma ahan mid sii jira intuu ku egyahay maadaama buugga nikaaxa aad jexda darteeda adiga waxaa lagaaga baahan yahay inaad aqbashid yaamaan hadda nin weyn ayuu noqday go'aankiisana waa inaad ku ixtiraamtaa aabayliin iyagu waxaa timaadee yaamaan qolkiisa ayay jirtaa gabadhaas sodohda u tahay wiilkaaga laabtiisa ord ka soo bixi waayahe wax kale kuuma harin adige fiiri bal weli way sii hadlaysaaye mudana muxsin ma aragtaane naagtan oo bilaa xishoodka ah wuu dhibaato ayaa wiilkayga dhexda ka gelisa iyadana si raaxa leh ayaa rabtaa inay u noolaato dhibaatadan oo dhan ayada ayaa ka dambayso ma xishoonaysid miya adeer muxsin wax kama dhehaysid marwo igraan la qiiqay maxaan ka ogaynaa arrintan ani ceeb ayay idinku tahay wallaahi dhammaantiina ceeb idinku tahay mala socotaana muxsin markii aad jiis noqotay annaga ayaa garab ku siinay annaga ayaan dhahna waa shaqaalo in badan inoo soo shaqaynaya ayaan la dirin
guri ayaan ku siinay kadibna naagtan meelay ka timid la ogeynaya noo keentay sidaas inta kalmad kuma dhin waan aamusnay hadeertaana waad arkaysaa waxyaabaha ay samaynaysa soo maahan khatarto dhan waayo ilaahay raali ka noqdo ani wax badan waa ii samaysay waa kaaga abaal haya laakiinse arrintan dhacaysan maxaan ka ogaynay wax walba oo dhacan ana ma hadirtan gulfaan qadarka cid bedeli kartaa way iraatee ma lahan qof walbana qadarkiisa ayuu ku noolaanayaa wiilkaaga qadarkiisa wejiga ayuu uga qoran yahay oo kaadin yar oo kaadi riyadaad ku jirto walwad ka kacaysa anigana qofkaan hayla hadda maadan arkale waan ku tusi doonaa dhegeysta guriga inay naga buriyaan aan baka cabsanayaa maya aqi kawal walaada waxaas ma dhici karaan iyadoo iska qaylinaysaa kadibna gudaha iska galaysaa waa intaasoo keliya iska qaylisay ha sidaasaa dhacayso nasriin shaah ii keenayaan ku dhahay soco xoogaa kadib ayaan kuu keenaya buugaana ilinaa ogeey naagtaan halkaan inay imaatay cid kale inay ogaato ma rabo arrinkan inuu sii dheeraadana ma rabo maya aqi suldaan isdeji waa ku baryaa cid wax loo sheegaya ma laha midda kale gabadhaas wax fiicanay samaysay wallaahi cid qabkaaga jibin kartana ma lahan anaa ku dhahay cid wax iga bedeli karta ma lahan waxaan ku dhahay cid wax iga bedeli karta ma lahan halkee ka imaata miyay idhaahdane ankara ayaan ka imaada ankara cid wax iga bedeli kartana ma lahan halkan maxaad ka samaynaysaa labadana waa isguursanay adiga xaaskaagana waa nahay halkan maxaa ka qabanaysaa maxaa la aniga inteen aadi lahayne caawa gurigiina inaad seexanaysidanba ku fikiraya ka waran waa kana guriga aniga aan leeyahay hagaag waaya meeshaad iska seexo seexo maa dhahday kaale adiga halkaas inaad seexato ma arabtaa haa runtii aniga aad iyo aadaan u daalanaha maalintiidana maalin xun ahayd waad og tahay aniga xitaa sidaasoo kale igu adkeed laakiinse waan ka soo gudbay hadda labadan waa isla seexanaynaa sidoo kale laabtuna waa isgelinaynaa soo maaha diyaar uma ihi inaan qof la seexdo sideeda bannaanna ma caadaysan yacni inaan qof la seexdo xaaladdeeda ma wanaagsana marka iska seexa adiga aniga xoogaa suuligaan galaya waa iska soo qubaysanaya waana seexana wax yar kadib haba wanaagsanya awowa fiiri shaamku keena macnaa xoogaa buskudna waa soo raacaya macnaa saan u sheekaysana shaahan ku sheekaysa adiga malayacniga la iskaga hadal ilaa wax kala sameyn kartid awow fiiri dhegeysa yaqay adiga hamar walba maxaad igu xanaaqda ii sheeg yaqay ma ogeenan ku dadkaasnas wax ka dhexeeya inaad ifaantid wareega amusan ku dhahay la hadlen shaydaan yariisa taa wariya inaan ku aqoonino kale igula hadlaysa ka waran bes yaqay awow halaan kadib ha igu dhiwac basni waa oga aniga maadooyinka low maadan inaan ku soo dhacay laakiin dhibaata malaan ku dhahay jaamacadeeda horan u sii wadaan ku dhahay markaasaad arkaysaa labadaas maada maalintiin kasoo dhex baxo kadib aan ku imaa kadib ani adawaa sheekaysaynaan ku dhahay wax walban waa wadaagayna afkaaga laba taa ka iga saar mar kale maxaa dhacay haddana maxaa dhici lahaan wiilo maroo gulfo qoftan jamiila dhankeeda aaday maxay tahay haddana warkaali idinkaani ma imaalaysaan madaxa iga gasheen qoftaan qof kale isku malaynaysaa wax allaala waxay doontaa ayay samaysanaysaa sideenan u weeraraynina maxaan u weerari waay maskaxdeedoo dhan ayaan waa isku dhex buuqay kadib waxaan samaynaya wax kale waanba kala aqoonsan waay soomaa dhibaatada inoo geysteen waay allah dhegeysa adiga miiskood ka burisa soo maahan xishood la-aan heerkay ka gaartaan ku dha guriga ayayba ugu sii geenaysaa ka waran hooyo
war aamusaa ku dhaa waxaad ogtahay malaha naagtaasi wiilkaygay asaga rabtaa xaaskiisa waa ninkeeda la joogtaa wari dhegeysa haddii maskaxdii xanuunayso adigana ha iiga darinaan ku dhaa naagtaas ma difaaci kartid oo ku baryaa sabab yaaqay muxuu u difaaci waaya ilan walaalkiisa waa teeda kale yaamaan aniga wejigayga ayuu xishood geliyey waxaasoo dhan hadda ka gudub dhowl caddaynteeda adaa soo celinaya aniga adiga waay habeen wanaagsan habeen la mid ah wiilkayga aan jeclahay tamaam golfam wixii dhici lahaa waa ay dhicin adiga maskaxdaada soo celi yaaqay sideen maskaxdeeda ku soo celiyaana wad arkaysa soo maaha naagtan gurigeenay dhan ayay baabi'inaysaa adigana waad difaacaysaa oo garab ayaaba sii siinaysaa baraafa middaas wax faa'iide ay leedahay ma lahan haddeertaan annaga waxaan ka qaban karna ma lahan nikaaxaas wuu dhacay amaana gabadhaas wuu guursaday yaaqay reer magaal iska dhig waxaas kor oga bax golfam si fiican ii dhegayso haddii aad rabtid gabadhaas inaad u dhowaatid waxaad ku qasban tahay aniga oo keliya inaad garab isiiso aad garab istaagnaato aniga dabcan adiga yaamaan hadda waxa uma dhehaysid laakiin mar walba gabadha oo keliyaad u dhowaanaysaa golfam adiga shaqadaadaad qabsanaysaa waad i fahantaan u malaynaa ugu dambe cumul joosa saanas daymayno wariyaa laalaciyo mala yacniga iga jooji hord baxaan ku dhahay sheex halkan waa keena dhehaysi waa inaad keentaa soco waayahay anigana wiilkayga biyo hore igu keenyahay madaxa dhan ayaa xanuuna nafis daran dareemaya aabo oof yaaqay fiiri sideen isku dejiya mawduucan u xiraa marka hore dhinac nooga bax shaqada allah kuu fududeeya xoogaa ganuusa ma qaadan karaan adoo raalliya هذا معا dhegaystayaashayda wanaagsanaa intaan heesta idin daarin ka hor waxaan rabaa inaan idin sheego yaamaan inuu jecel yahay firaya ugu horeyn firaya yaamaan jeceylka u qabo ayuu usoo bandhiganayaa kadibna barnaamijkeena heesta ayaan sii gudagalaynaa
yamaan hadda ma qanacdayna ma aanan qancin yaqay isiida yamaano waayo taleefka maxaad iga qaban weysay ilaa saaka kaala haddaad xanaaqda sidaasoo dhan miyaad ii ciqaabaysaa ii sheeg bal adiga maxaad iga xanaajinaysaana ii sheeg bal fariin yar lay ahayd fariin maala yacni ahayd maxaad u xanaaqaysaa gabadhaas aad iyo aad ayay kuugu soo dhowaanaysaa stiikar qosole uun baan u diray adigana sidaad arkaysay fariimo badan ayay ii soo qortay umana aanan jawaabin mar kale hadday kuu soo qorto maya firaaya waaban baloogay ugu dambeyn maskaxdaada dib ayay kuugu soo laabatay wejigan quruxda badan aniga aad iyo aadan u jeclahay soo ma ogid adiga yamaan maxaad samaynaysaana ceeb waay waddada ayaan waxba ma dhacaayan yamaan naga dhaaf ilaahan kugu dhaariyo dadka ayaan arkayaane yamaan waa istadeena okay xabiibi aniga guriga ayaan joogaa xoogaa waxaa rabaa cashir inaan akhrisado kadibna aan iska seexdo haddii aad isoo wacdo waan kaa qabo waayo ha ii welwelin yaa xabiib waan jiifaa waan ku jeclaha noloshayda habeen wanaagsan subax wanaagsan subax la mid ah subax la mid ah walaal inaan kula hadlo ayaan u baahanahay aniga maxaa rabtaana jaamacadda way ii dhammaan rabtaa qalinjibintayda ayaana soo dhow waxaana la sheegay shirkad ku taala istanbuul oo wax walba noo fududaynaysa annaga aniga inaan baxo ayaan u baahanahay maya wallaahi aabba keligay maad iga tegaysaa istanbuul rabtaa inaad aado oo kadibna aad soo raaxaysato miya walaal maxaa waay waxa ku hadlaysid halkaas aniga waan ka shaqaynayaa maala yacni wax uma aanan garanaynin adiga halkan ayaad ka shaqaynaysaa mudane cumarna mar dhow shirkad ayuu furan rabaa iyo ammaana leylaa ayuu guursaday soo maa midda kale adiga waxaan kaa rabaa bis inaad wax soo barato kadibna shahaadadaad aad aniga ii keento anigaa shaqo ka dalbanaya si ay adiga shaqo kuu siiyaan maxaa dhacay wejigaagasi muxuu isku beddelay walaal shirkadaha istanbuul aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin waxaan rabaa inaan wax fiican qabsado aniga waana ogahay arrintan aabbay haddaan u sheego inuu ii oggolaanayo welibana iska baxo uu ii dhahaayo keliya adigana inaad ogaatid ayaan kuugu sheegay waayahay beela waay aabbo waxaan kaaga baahanaa nasriine meelaha weeyeylada lagu xanaaneeya inaad u soo raadiso adigana waad iska bixi kartaa ii soo baashaal walaal waa maxayna waxa ku hadlaysid malayacnigaana maxaa waaye waayeelada meesha lagu xanaanay aabbahan muxuu ka samaynayaane firaaya ay dhegayso adiga inaa baxdaa rabtaa jamiilaana sidoo kale inay baxda ayay rabtaa anigaa qasrigaan joogaayo ooshoo dhan anigaa qabanaa intan anigaa qabanaa halaasoo dhan ma isku keeni karayaaqaay adiga haddii aad ku madax adeegaysa inaa baxdo aabbahaaga waxaan u soo raadinaynaa meel qurux badan oo asagana joogi karo subax wanaagsan subax la mida aabbo naa gabadhay firaaya asaaka mab isoo marin bay adiga hadda daawo inaa isticmaalaa rabaa biyaan rabaa ii kaanba gabartay waayaha aabba macan waayahay aabba gabadhaada waxay sheegaysa maqash miya gabadhaada waxay leedahay istanbuul shirkad ku taalaan aadaya kadibna halkaasaan rabaa inaan ka shaqeeyo anigana waxaan dhahay mudane cumar shirkad cusub furan rabo kadibna meeshaasaa ka shaqaynaysaa adeer cumara ku weydiiya taas dhib ma lahan asadis dhibaato ku qabane unakana waa arkaynaa markaas laakiin
arrimaha leela iyo waxyaabaas in laisku haysto waa ogtimaho aabe maxaad ku hadlaysaa yaaqee way isguursadeen yaaqee midda kale gabadhan markii ay shahaadada soo baxday kadib mudane cumar shaqo la weydiina intaas lee waaye waaya saas deetaa way wanaagsan tahay laakiinse waxaa ogaaysaa gabadhee firaaya istanbul aaday u weyntaa dadna mana odagna unuka adna meeshaas haddii tagtid runaantii anu waa ku walwalamaho gabartee haye gabadhe ra'yigayga siduu kuleeyaan ii sheeg aabbahaaga cidlamada ugu tagaysaa waxay ahaataba gabartee nasriin shaax inaa ii shubtidaan rabaa hadda waayahay aaba diyaar waa xabiibi halkeed u socotaane shir ayaan u socdaa ileyna sidee yacni maalinka ugu horreysay ee arooskan miya adiga iga tegaysaane familkaaga waxyaaba fara badan aniga ure waan ku baryayaa anigii keligay ha iga dhex tegin waan cabsanaa waxba ha ka walwalin caadi iska dhig teeda kale aniga awow aniguba i raacayaa hooyadeenna kuma dilayso marka caadi iska dhig adiga an xubi waan ku baryaa shirkan oo dhan waa inaad iska baajisaa xabiibi adiga xalatol waa xanaaqsaneed waxna kaama dhihin hadda waxaa loo baahan yahay labadeenaba si wada jir waqtigina u qaadano maya ma awoodo mana baajin karo shirkaas waa muhiim inaan baxo tawraan haddii aad rabto hooyadaa dhankeeda waad aadi kartaa haddii aad rabtona masriin cunto ii keen waad dhihi kartaa sidaad jeceshaa samey ama shoobin samayso sidaan dhan muxuu igula hadlaayaane sababtuu degan yaana maxay tahay khayr ma jiro xaggeed u socotaa wiilkayga cashiraad jaraa la dhah muran fawraal waaye walaalkana waa la sugaya ateshna idinka sii baxasdha kadib gadaalan ka soo baxa awowna waxasdhowa si dhaqsile inaan ku baxna waay laakiin adiga sidee tahay in xaaladaada ma ficna ku barya waxba hay weydiinayaa qey quruxley abirtay maalmaan quruxleeyaad naqatayaa ku dhaa qurux zaa'id aada dhambeelaya qey maamadeeda waad ogtaa soomaa wiilkayga waxyaabihii dhacay waad ka warhaysaa haye hala dhaqsado haye yaqe tartiiba ha jibinina maxaa idinku dhacayna idinka sanduuqan qaali waayaan ku dhahay in la ilaaliyaan u baahanahay tartiiba yaqe yaa walaashii sanduuq hore waa moogid miya waaye hadduu sanduuq hore yahay maku dheelaysiin markaa iga jibinina yaqe tartiiba waa qaada yaa walaashii maxaa waayana alaab gabadheeda arooskeedaan ugu talagalay waaye wiilkan sadohda u ahaa subax wanaagsan subax wanaagsan hooyo subax lamida wiilkaygi oo kan waan daahnay maan dhaqaaqno wiilkaygi xaalatoole si xun ayaan ku wada hadalnay macquul hadday tahay caawa ma kulmi karnaa si aan wadajir ugu cashir tamaam masalaam dhaqso walaal gaariga hore soo bixi tamaam wiilkan sadohda waa shaqada allah kuu fududeeyo dhaqsadii yaqay sidan ha u taagnaanin alaabta gabadheeda waa inaan u geeyaa socda ilaahow sabarisi yaa rabbi ilaahow sabarisi sidee taan ku dhiiraw laakiin su-aalnad weydiisan ka baqi waa mid macquul ah walaalka hal midaan ku dhaa laakiin wax iska cadile waa ogowya maxaa dhacay jiwga mid wanaagsan kulama muuqdo maya xusuusta ma kaalmo walaalkayga yaqay maxaa kugu dhacin labadeena inaa isfahanaa raba yaqay si caadiyan kula hadlo laakiin adiga waa igu xanaaqaysa yaqay midaas in laga wanaagsan yahay muumalay sida xoogaa waxaan rabaa inaan kuu sheegay dhageysa awoobi iyo hooyan ku dhaa waxay ku tashooyin gabartaan si xun inay loo dhaqmaa ada maxaad isku wareeraysaa awoobi iyo hooya guri ka saaraya mayno adigana howshaa tartiibad wadaysa caadi iska dhig walaalkay marka okay okaan adiga hal mar si cad waxa igu sheeg maanta oo dhan war iyo bagbagbagbagtaasad ku haysaa maxaad ku hadloosaa yaqay walaal fiiri
awow waxaas dhaa shirkadda ciyo al imaad hadafkiisa ma ogayaan ku dhahay waxyaabaha askaway laadu waa oo kanigamus kaalaad maxdi waxaan aqoonsaa waa arkaysaan ku dhahay gabadhaas guriga waa laga buri waan arkay xaaladiisa waa sidee victor xaaladiisa aad iyo aad ayay u xun tahay ilaa ka soo naxna waa inaan sugnaa 12 saacadood gudahooda inuu ku soo naxay laga yaabo adiga xaaladiisa waa inaad ka sii taxadartaa waaya victore ciddiisa ilaa hadarta lama ogaani miyana maya askarta ayaa isbitaalka imaanayso ayaga ayaa ciddiisa raadinaya hooyo aad ayaan u daala hooyo aad iyo aadna waan kuugu xiisay waan kuu baahanahay waad baxda adiga oo waad iga fog tahay waxaan rabaa inaan laabta ku geliyo waxaan rabaa inaad idhaahdid ha murgin waxaan rabaa inaad idhaahdo gabadhayda ha welwelin qof walba iqaabtuu leeyahay ayuu maraaya haa hooyo waxaan rabaa inaad idhahdo iqaabtiisuu maraaya adigana waxyaabahan waad ka gudbaysaa aniga hooyadaa waan xusuustaa hooyo aad iyo aad u fiican ayay ahayd gaariga markii aad saarnaydna waan ku arkayay maxaa kugu dhaca firaayaa maxay xaaladooda sidaan la tahay ii sheeg adigana aad iyo aad ayaan kuu murjiyey soo ma ahana igraalno qayaqay subaxnimadana ma doonaya inaan madax kaa galo maya ha ka welwelin haddii aan daalo anigaaba baxaya maxaa dhacay jaamacadda ayaa waxay ii diraysaa istanbul anigana jaanis ayay ii tahay halkaas inaan tago maxay la caloosheedu way soo weynaanaysaa mana rabi familka arrintan inay ogaadaan walaalkay markaan u sheegayna wuxuu igu dhahay haddii aad meeshan ka tagtid aabaheen meesha waayilada lagu xanaaneeya ayaan geynayaa shatiin soo maahan waan fahmay maxaad samaynaysaa hadda ma aqaano waan fikirayaa keliya aabahey ayaan ka walwalayaa hadda haddii ogaado aniga uurkayga aabahey wuu naxayaa naxtin ayuuna la dhimanayaa aniga ma awoodi halkan inaan joogo haddii aan baxan aabahey meesha waayilada lagu xanaaneeya la geynayaa ma aqaano waxaan sameeyo hazaal waan fiicanahay aniga waan kuu imaanayaa hadda ayaan guriga kasoo baxay waddadan kusoo jiraa oo hadda jaamacadda ma aadaysaa soo baxaniyaa ku dhaweynaya
maya yacni aniga keligii inaan socdaan rabaa haddii ay macquul tahay iga raali noqo marka sidaad jeceshahay nambarkaaga ii seefgaray firaaya xaaladahan markii aad geshid isoo wac nambarkaygana seefgarayso waad mahadsan tahay waa iska caadi waxaasi ay aniga dadka miyaa u soo iibisay gabadheedi meeshaan soo fiiri bal meeshaan waxaa ku jira alaab iyada ay lahayd alaabtaasna timaha ayaa lagu xiranayaa kaale iska aragan ku dha qurux hadda kadibna gabadheeda aniga waxaad ii wadaysaa saaloonka soo maaha aadana qurux badanahay laakiin quruxdeeda waxaa rabaa xoogaa yar oo dhan dhalaalisa inaan ku darsado hooyo macaan mar walba waad qurux badan tahay ay yariisteydii quruxda badneed maxaa kaa macaan badan gabadheyda la jeclaydeyda nolosheydii maxaa dhacayna sidaan wejigaaga muxuu u yahay hooyo maan xaalad si qaldanayo oo ila hadlay xaaladoola kursi ayuu seexday saakana qolka waxa uu gubaxay sida inuu baxsanayo kale wallaahi waan ka xumahay wiilka awoowey sida u gala ma aragtay dharbaaxyo xitaa wuu ku dhufta ka waran hooyo macaan waxyaabaan muxuu samaynayan aniga xaaskiisahan soo maahan wax walbana inuu ii sheegtaayeed sida inuu ila dhaqmiye gabadheedii wiilka wuu xishoonayaa soo maaha shaqada allah idiin fududeeyo mahadsanid saylata iyo ammaan uma aadan soo iibinin sababtoo waxyaabahan oo dhan maba xirta soomaan waad isdaalinaysaa oo keliya maya alaabtan alaabta soo iibiyey maaha waa alaab hore aniga hooyadan waa fiirinin oo keliya fiiri bal sanduuqan wasaqdiisa iyo boorkiisa wax la xiran karo kumaba jiro laga yaabay baranbaro inay ku jirto maya maya sanduuqayga baranbaro kuma jirto nadiif waay waxay ahaato aniga qolkayga ayaan aadaya adigana ii daway mooya qaxan salcabayna waayahay kaale adiga kaale fiiri naagtan waalan waxyaabahan ee sameynaysa ka tuuran ku dhayaaman hadduu arko inuu xanaaqaa laga yaabaa yaa gabadheydii waxyaaba moo aniga tuuraya ka welwelin hooyo aniga maxaan sameeyaa ayada si qaldan ilama hadlayso waxay leedahay qaxwo ayaan wada cabaynaa maya gabadheeda ha isdhiibin gabadheedi kaama ogolaanayo markaan inaad isdhiibtid naagtan khiyaano ayay damacsan tahay alaabtaada inay kaa tuurta ayay rabtaa adiga doqon miyaa taa alaabtan sideed u tuuraysaa gabadheeda xasuus waaye hooyo alaabta qadiimiya inaa ii keento mayn aniga maala yacni ayaaba u arkaa ka waran oo hadda sidaas miyaad leedahayne sanduuqa arooska guriga maxaa loo keenaa gabadheydii waxaa loo keenaa gabar caruusada qurux badana guriga inay joogto waad soo geli kartaa abow caafimaad ku cabiyaa waad mahadsan tahay madana maalintii kuugu horraysay ee arooskaaga ayaan annaga shaqo kuugu qasabnay naga raali noqo hadday macquul tahay haddii aad rabto faylasha inaad fiiriso shirka ka hor waa kuwaana awow hadda looma baahno dhaqso fariiso aboobe aboola arrintiis wax ma laga ogaada micnaha wax maka ogtahaynaade maya yaa og waxyaalahu qorsheena ee doqonkaas isagu waa ey meel ayuu ka soo bixi doonaa ma fiican tahay ugu horreyn waan fiicanahay adiga halkaas ha fadhiisanin booskaaga saxda ah waa halkan
mudane faraalna ha ogaado annaga qofka maamulaha noo ah soo sidaas ma ahana ilaan goordhow gabadhiis ayaad guursanaysaa maxaa dhacday walaal hadda ma aqbasha baadaa inaad guursateed ilaa hadda wax cab ma jiraan kaalay soo soco halkaanaad fariisanaysaa soo soco dhaqso Jump